qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta banaanbax balaaran ka sameeyay kumanaan qof oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka bajaajta kuwaasi oo ka cabanayay dhibaatooyin kala duwan oo ay la kulmaan xilliyada ay ku jiraan howl maalmeedkooda magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan injineeriso ayaa isgooska Taleex ee degmada Hodan kula kulmay kumanaan ka mid ah dadka banaanbax sameynayay ee ku shaqeysta mooto bajaajta isagoo kala hadlay cabashooyinka ay qabaan iyo sida ay wax u doonayaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa cod dheer ugu sheegay wadayaasha gaadiidka bajaajta in wax laga qaban doono cabashooyinka ay qabaan isagoo tilmaamay in marnaba uu maamulka gobolka Banaadir aqbali doonin dhibaato loo geysta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho. waxa uu sidoo kale duqa magaalada Muqdisho sheegay in si degdeg ah gacanta loogu soo dhigi doono gacan ku dhiiglayaashii ka dambeeyay dilalkii loo geystay qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka ee bajaajta loo yaqaan. kulanka uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho la qaatay banaanbaxyaasha maanta ayaa waxa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareegaas Bashiir Cabdi Maxamed. dhalinyaro maanta falkii dhacay waa mid aan loo dul qaadan karin ma la aqbali karo cid alaal cidii geysatan waxa idin ballan qaadaynaa in hay'adaha sharciga la horgeyn doono. ma annaga dhalinyaradiina bajaajka wada waxaan u aragnaa inay magaaladan dadkii camiray dadkii dhaqaalaha kobciyay dadkii shaqo abuurka abuuray dawladda shaqadeedii abuurtay idinka abuurtay dhalinyaro waa ognahay doorkiina iyo muhiimadiina madaxweynahana tan iyo saakay arrintaanu aad uga walwalayay 10 jeer uu soo waxay marka waxa idin sheegayna madaxdiina qarankana runtii aad idinkaga walwale annagana waa idin walwalaynaa si nidaam iyo kala dambeyn iyo dawladnimo u jirto idinkana u shaqaysataan. waxaan rabnaa inaan wax isla fahamno ciddii wax dhib idin geysatay weliba ninkii maanta wuxuu ahaa nin munishiibiyada ka tirsan oo dawladda hoose ah waxaan idin ballan qaadaynaa in qofkaas sharcigana la hor keeni doono idinkana meesha lagu xukumayo aad joogi doontaan. waxaan rabnaa inay tusaale u noqoto inaan cid dambe oo saas inuu dhib idin geysan karin idinkana midaan idinka rabnaa dawladnimo iyo nidaam waxay ku jirtaa kala dambeyn iyo nidaamkoo la ilaaliyo. haddii nin ciidana ama munishiibii ku istaajiyo ma iska bixisay ku dhaho canshuurtii waxaan rabaa si fiican inaa ula dhaqantaan. annagana waa kana taliyaha ciidanka oo dhan waa amran yihiin in sida ugu fiican ugu akhlaaqda fiican idinkula dhaqmi karo idinkula dhaqmaan. marka waxaan rabnaa waxaan dalkeenni waay annagaa iska leh waxaan rabnaa si nidaam ahoo nabad ah hawshiina inaad ku qabsataan annagana idin ballan qaadno cid kastoo dhib idinku haysta inaan idinka celinno. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.